waxa uu ahaa abaanduulihii furtay dhulka Andalus ee maanta loo yaqaan Spain iyo qayb ka mid ah Portugal. طارق waxaa magacaabay hogaamiyihii mujaahidka ahaa ee Muuse ibn Nusayr. طارق Ilaahay uu naxariistay waxa uu duulaan ku qaaday Spain sanadkii 711 isaga oo wata ciidamo dhawaan muslimay oo barbar ah iyo qaar kale oo Carab ah gaadhayna ilaa 7,000 oo dagaalyahan. markuu u gudbay dhanka Spain, Muuse ibn Nusayr ayaa waxa uu soo gaadhsiiyay ciidamo dheeri ah oo gaadhaya 5,000. boqorkii markaa geyiga Spain xukumayay ee boqor Roderick markii uu maqlay duulaankan ay muslimiintu ku soo qaadeen waxa uu diyaariyay ciidamo gaadhaya 100,000 oo dagaalyahan. hase ahaatee si aan la filanin ayuu طارق oo wata 12,000 oo nin uga guuleystay ciidamadii xuduudda lahaa. kadib guushiisii, طارق waxa uu ciidankiisii u qaybiyay dhowr qaybood oo furtay magaalooyinka Córdoba, Granada iyo dalal kale. guushiisii ka bacdi waxa uu yeedhay khaliifkii Umayyadeed haystay isagoo طارق Ilaahay uu naxariistay ku dhameystay noloshiisa magaalada Dimashq. Alexanderkii saddexaad waxa uu ahaa boqorkii boqortooyadii Macedon ee Greek ahayd isaga oo ka dhaxlay aabihii Philipkii labaad xukunka markuu ahaa 20 jir. Alexander intaanu gaarin gugii soddonaad waxa uu ku guuleystay inuu ku duulo dhulal aad u fara badan isaga oo ballaariyay boqortooyadiisii heer lagu tilmaamo inay ka mid tahay boqortooyooyinkii ugu waaweynaa ee soo mara bani aadamka. waxa uu ku fiday waqooyiga Afrika isaga oo aasaasay magaalada maanta ku taal Masar ee Alexandria. waxa uu qabsaday dhulkii ay xukumaysay Persia ilaa uu ka gaadhay Hindiya oo uu ku duulay sanadkii 326. magacyadiisa waxaa ka mid ah boqorkii Greek iyo Macedonia, boqorkii Masar, boqorkii Persia iyo boqorkii Aasiya. sida taariikhdu xusto waxa uu ka mid yahay hogaamiyeyaasha aan weligii laga guuleysan intuu dagaal galayay. ilaa haatanna waxaa la dhigtaa istiraatiijiyadii uu dhigay iyo taktikooyinkii dagaalka ee uu sameyn jiray. waxa uu xukunka la wareegay isagoo 20 jir ah waxaanu dhintay isagoo 32 jir ah taasoo ka dhigaysa inuu 12 sano kaliya ku qabsaday meelo badan oo dunida ka mid ah. waxa uu ka dhashay qabiilka Bani Makhzum ee Qurayshta ah. Khalid radiyallahu anhu waxa uu ka mid yahay generaalada adduunka ugu saameynta iyo maskaxda badnaa isagoo oo ahaa istiraatiijiyad weyn ee waliba dagaalyahan aan gaban. Khalid sida taariikhda ku qoran weligii lagama guuleysan dagaal uu abaanduule ka ahaa xitaa waqtigii islaamkiisa ka hor. waxa uu hogaaminayay kooxdii nabiga sallallahu alayhi wasallam iyo saxaabadaba jabisay. waxa uu kolkii dambena hogaaminayay ciidamadii la dagaalamaysay Ruumaanka ee Umar bin Khattab diray isaga oo ka soo hooyay guulo aad u fara badan xitaa uu gaadhay khaliifkii Umar radiyallahu anhu inuu caasilo Khalid isagoo ka baqaya in dadku ku fidnoobaan guulihiisa faraha badan una nisbeeyaan isaga halkii ay u nisbeynayeen Ilaahay subxaanahu wa ta'ala. waxa uu dhintay Khalid radiyallahu anhu sanadkii 642 isagoo dagaal lagaga guuleysan waxaanu ku dhintay sariirtiisa isagoo qoomeynaya inaanu ku dhiman meeshii uu jeclaa ee saaxadda dagaalka iyo shahiidnimada. Dariuskii koowaad. Darius waxa uu ahaa boqorkii saddexaad ee boqortooyadii Persia isagoo maamuli jiray adduunka qaybo badan oo ka mid ah sida galbeedka Aasiya, Qawqaska, Balkanska, Aasiyada dhexe, dhulalka badda madow ku xeeran ilaa Afrikada waqooyi iyo bari. Darius waxa uu ku xusan yahay buugta Bible-ka inuu ahaa boqor u naxariis badan dadkii Banu Israa'iilka. dadka qaarkiina waxa ilaa maanta ay qabaan inuu Darius ahaa boqorkii uu Quraanku sheegay ee Dulqarnayn. Darius waxa xukunkiisa hoos iman jiray qiyaastii 50 milyan oo qof. waxaa kaloo lagu xasuustaa inuu ahaa boqoradii adduunka ugu awoodda badnaa ee soo mara bani aadamka isagoo oo taariikhda ku galay in dowladdiisu ay ahayd dowladdii ugu horeysay ee yeelata luuqad dadka oo dhan midaysa, qabtirka iyo dhisidda wadooyinka, aasaasidda dowlad dhexe iyo balansaabyo. nidaamka uu dowladdiisaas u sameeyey waxa ay saldhig iyo aasaas u noqotay dowladihii ka dambeeyey ee Greek iyo Ruumaanka. Genghis Khan waxa uu ahaa boqorkii aasaasay boqortooyadii ama khaaneedkii Mongolka ee taariikhda ku gashay inay tahay imbaaraatooriyadii ugu weynayd inta taariikhda bini aadamka iyo adduunka laga warhayo. waxa uu noolaa intii u dhaxaysay sanadihii 1162 ilaa 1227 isagoo magaciisu markii hore ahaa Timujin
hase ahaatee waxa uu ku guulaystay inuu mideeyo qabiiladii reer guuraaga ahaa ee ku noolaa dhulka Mongolka oo badankoodu markaa col ahaa, isaga oo markaa kabacdi loo doortay khaankii weynaa. intaa kadibna waxa uu ku dhaqaaqay inuu ku duulo dhulalkii ku agxeernaa ee China iyo Korea. kolkuu qabsaday China waxa uu u soo dhaqaaqay dhanka iyo Caucaska iyo dowladii weyneed ee Khawaarismiyiinta. waxaa lagu xasuustaa inay weeraradiisu ahaayeen xasuuq iyo dil aan takoor lahayn, khaasatan wuxuu xasuuq ba-an ka geystay dowladii muslimka ahayd ee Khawaarismiyiinta, isaga oo magaalooyin waqtiga ahaa magaalooyinkii ugu waaweynaa dunida gebi ahaan dhulka la simi jiray, dadka ku dhaqanna leyn jiray, sida magaalooyinka Bukhara iyo Samarkand. waxaa duulimaadyadiisa ku leedan jiray malaayiin qof. sababtaas ayaa saaciday inuu baqdin geliyo boqortooyooyinkii waqtigaa jiray. Genghis Khan markuu dhintay waxaa xukunka uu uga tegay inankiisii Ogaday Khan oo sii waday ballaadhinta imbaraatoriyadiisii ilaa ay ka qabsanayeen caasimadii khilaafada Cabaasiyiinta ee Baghdad intaan lagaga guulaysan dagaalkii Cayn Jaaluud ee ay ka gacan sareeyeen ciidamadii muslimka ahaa ee mamaaligta, taasoo sababtay bilowga dib u gurashadooda. Maxamed al-Faatix waxa uu dhashay 1432. aabihii waxa uu ahaa suldaankii Cusmaaniga ahaa ee Muraadkii labaad. Maxamed isagoo yar ayuu aabihii ku barbaariyay culuumta diinta iyo luqadaha, isagoo aad ugu adkaa diintiisa, yaqaaniina ilaa 7 luqadood. Maxamed isagoo 12 jir ah ayuu aabihii xukunka uga degay, isagoo arkay maskaxda inankiisa yar ku jirta. hase ahaatee 2 sano ka bacdi waxa uu ku soo noqday xukunka aabihii. mar labaad ayuu dhaxlay suldaanku markuu ahaa 21 jir xukunkii, isagoo ay dhiirigelinayso xadiiskii nabiga sallallahu alayhi wasallam ee furitaanka Constantinople ama Istanbul, isagoo nabigu sallallahu alayhi wasallam sheegay in Constantinople ama Istanbul amiirka furan doona iyo ciidankiisuba ay u sugnaadeen wanaag. Maxamed al-Faatix waxa uu ku furtay magaaladii aan hore lagu duuli jirin maskax iyo ciidan adag oo gaadhaya ilaa 200,000, isagoo weliba isticmaalay taktikooyin ay ku jirto inuu ka weeraro dhanka badda iyo bariga iyo weliba isticmaalka madaafiicda waqtigaa ugu bahaa. kolkuu magaalada qabsaday waxa uu uga sii gudbay inuu furto dhulal badan oo ay ka mid yihiin Serbia, Kosovo, Bosnia, Romania, Albania iyo dhulal kale oo fara badan. waxa uu dhintay Ilaahay ha u naxariistee isagoo ku sii jeeda koonfurta Talyaaniga si uu u furto. da'diisuna waxa ay ahayd markaa 49 jir. waxa uu ka tegay dowladii Cusmaaniyiinta oo fiday iyo dhulkii muslimiinta oo kordhay. Ilaahay ha u naxariistee Maxamed al-Faatix. Hannibal ama Hanbal Barca waxa uu ahaa jenaraal ka soo jeeda imbaraatoriyadii Phoenician-ka ahayd ee Carthage ee saldhigeedu ahaa waqooyiga Afrika. Hanbal Barca waxaa la xusaa inuu yahay jenaraaladii ugu maskaxda badnaa ee soo mara taariikhda. waxa uu noolaa hilaadii qarnigii 2 ciise ka hor, waxaana uu soo gaaray waqti badda Mediterranean-ka ay ka jirtay xiisad dagaal oo u dhaxaysa dowladihii Greega iyo imbaraatoriyadii Roomaanka. waxa uu caan ku noqday cadaawadii uu u qabay Roomaanka, isaga oo kaga guulaystay dagaalo badan. dagaaladiisa kuwii ugu caansanaa waxaa ka mid ahaa dagaaladii Punic labaad, isagoo wata ciidamo ay ku jireen maroodiyo loo carbiyay dagaalka, isaga oo galay jasiirad u eekaha Iberia ee iminka Spain iyo Portugal ilaa Faransiiska oo uu kaga soo wareegayay Talyaaniga. dagaalada isdaba joogga ah ee uu ku guulaystay ayaa sababtay in loo qiro cabqariyadiisa dagaal iyo taktikooyinkiisii cajiibka ahaa. 15 sannadood oo uu haystay Italy ka bacdi waxaa lagaga soo duulay dhanka iyo waqooyiga Afrika ee uu ka qabsaday qaa'idkii isaga laftarkiisu xariifka ahaa ee Scipio Africanus. guuldaradiisii ka bacdi waxa uu u baxsaday xagga iyo Yurub oo uu dagaalo kale kula galay Roomaanka, isagoo dowlado kale matalaya. ugu dambeyntiina waa uu isdilay kadib khiyaamo loogu talagalay in lagu gacan geliyo Roomaanka. Salaaxudiin waxa uu ahaa suldaankii Kurdiga ahaa ee sameeyay saldanadii Ayuubiyiinta ee ka talin jirtay Masar, Suuriya iyo qaybo kale oo ka mid ah dhulka Carabta. waxa uu ahaa Kurdi Sunni ah. Salaaxudiin waxaa lagu xasuustaa ka hortagga iyo jihaadkii uu kaga hortagay saliibiyiintii duulaanka ku ahaa dhulalka muslimiinta, khaas ahaan Masjidul Aqsa. waxa uu ku dhashay magaalada Tikrit ee maanta ka tirsan Ciraaq. magaciisa saxda ahina waa Yuusuf ibnu Ayuub. Salaaxudiinna waa naanays lagu maamusay isagoo yar ayaa lagu barbaariyay diinta Islaamka. buugta qaarkood oo laga qoray ayaa sheegaya inuu ka doorbidi jiray diinta oo uu barto askarnimadii oo markii dambe ku dambeeyay.
salaaxudiin waxa uu ka mid ahaa militarigii dowladdii ama saldanadii sinkiyiinta ee uu amiirka u ahaa hogaamiyihii caanka ahaa nuuraddiin sinki, isagoo soo qabtay xeelal badan oo ay ka mid yihiin jenaraal iyo wasiirkii u fadhiyey Masar. waxa uu salaaxudiin sidoo kale qayb ka ahaa baabi'intii Masar laga cirib tiray dowladdii shiiciga ahayd ee faadumiyiinta. intaa kadib waxa uu olole dagaal ku qaaday saliibiyiintii haystay masjidul aqsa iyo magaalada qudus oo uu kaga guulaystay dagaalkii Hattin ee sanadkii 1187 iyagoo markaa haystay 88 sannadood dhulka barakaysan. salaaxudiin waxa uu ahaa shakhsiyan nin aad u naxariis badan oo deeqsi ah, isagoo ilaa maanta lagu xasuusto siduu cafiska ugu fidin jiray dagaalyahanadii cadowgiisa ahaa. waxaa la sheegay xitaa salaaxudiin al-ayuubi deeqsinimadiisa daraaddeed inuu dhintay isagoo aan lahayn wax kafan loogu iibiyo. ilaaha u naxariista. waxa uu salaaxudiin dhintay sanadkii 1193. Julius Caesar waxa uu ahaa jenaraal iyo hogaamiyihii Roomaanka intii u dhaxaysay sanadihii 49 ilaa 45 ciise hortii. dhimashadiisuna waxa ay sababtay dhamaadkii dowladdii dimuqraadiga ahayd iyo bilowgii dowladdii Roomaanka ee boqortooyada ahayd. Caesar waxa uu ahaa siyaasi iyo jenaraal cabqari ah oo taktikooyinkiisu lahaayeen awoodda ah inuu ciidamo yar uga adkaado qaar kaloo badan, lagana yaabo inay ka awood badnaayeen. waxa uu xilka ku fuulay kabacdi diblomaasiyad iyo xariifnimo uu la ciyaaray siyaasiyiintii Rooma, isagoo qaarkood khaarijiyey oo dagaal ku qaaday kadib markii ay ku amreen inuu ka dago xilka jenaraalnimo ee uu hayay. waxaa lagu xasuustaa inuu ku duulay qowmiyadda Celtic ee deganada dhulka haatan ah galbeedka Yurub. waxaa la xusaa inuu dhulka la simay 35,000 oo qabaa'il Jerman ah oo rabay inay soo dhaafaan xadka Rooma ay la lahaayeen iyagoo doonaya inay ku duulaan Celtic, isagoo dib ugu celiyay dhulkoodii kadibna biriij ka sameeyay meeshii ka soo gudbeen. sidoo kale waxaa lagu xasuustaa inuu la saftay boqoradii Cleopatra ee Masriyada ahayd, isagoo ku guulaystay inuu xilka u soo celiyo Cleopatra. Caesar waxaa lagu dilay shirqool ay u maleegeen xildhibaano dowladdiisa ka mid ah waqti shir loo ballansanaa. Napoleon waxa uu ahaa jenaraal ciidan oo Faransiis ah kuna xeel dheer istiraatiijiyadda ciidamada iyo dagaalka. waxa kale oo uu ahaa siyaasi soo caan baxay xilliyadii kacdoonka Faransiiska kadib inqilaabkii 1799 ee uu xukunka kula wareegay. waxa uu isku magacaabay imbaradorkii Faransiiska, isagoo markaa ku duulay qaybo badan oo ka mid ah Yurub horaantii qarnigii 19aad. Napoleon waxaa lagu xasuustaa dagaaladii Napoleonka ee uu kula jiray isbahaysiyo Yurub ka dhashay oo isaga ka soo horjeeday, isagoo ugu horeyntii ku duulay Talyaaniga oo ay haysteen boqortooyadii Austria, isagoo ku qabsaday sanad gudihii kuna guulaystay gebi dagaaladuu la galay Austria. waxa uu mar kalena dagaal la galay Britishka kadibna kaga adkaaday ololihii Ulm. waxaa kaloo uu ka guulaystay isbahaysigii Austria iyo Russia, taasoo sababtay afsoo jaranka xukunkii The Holy Roman Empire. mar kale ayuu dagaal la galay boqortooyadii Prussia ee Jarmalka ahayd, isaga oo iyagana dhinaca dhigay. waxaa kaloo uu ku duulay Iberia oo maanta ah Spain iyo Portugal, isagoo walaalkii boqor uga dhigay. ugu dambeyntii sanadkii 1813 bahaysi ay samaysteen Prussia, Austria iyo Russia ayaa olole dagaal ku soo qaaday Napoleon, iyagoo ku guulaystay inay soo galaan Paris. Napoleon ay u mustaafuriyeen jasiiradda Elba kadib markay ku qasbeen inuu xukunka ka dago. Napoleon waxa uu ku guulaystay inuu ka soo baxsado jasiiraddii Elba, isagoo 1815 dib ugu soo laabtay xukunkii, taasoo soo celisay isbahaysigii isaga ka soo horjeeday iyagoo uga adkaaday dagaalkii Waterloo. dowladdii Britishka ayaa mar labaad u mustaafurisay jasiiradda aan la degin ee St Helena oo uu ku dhintay 6 sano ka bacdi isagoo 50 jir ah. Napoleon waxa uu dhintay 5 May 1821